walaalo bulsho soo dhawaada. Maanta waxaan idin haynaa muuqaal kooban oo ku saabsan sida ugu fudud wax uga baran karto website-ka loo yaqaano British Council, mid ka mid ah website-yada ugu fiican ee laga barto luqadda Englishka. Insha Allah ta'ala waxaan idin tusi doonaa free materials-ka ku jira website-ka iyo sida ugu fudud oo isticmaali karto. Marka soo dhawaada, subscribe kanaalka. صاحبي الواكن website-ka British Council sida ujeedaan waa website ballaaran oo bixiya koorsooyin fara badan oo dhanka Englishka ah. Qaybtan waa koorsooyinka uu bixiyo website-ka. Koorsada ugu horeysa kala yiraahdo waa live online classes baa la yiraahdaa, waa casharo live oo toos ah. Qaybta ku xigta waxaa la yiraahdaa self study online courses oo loogu talagalay dadka tusaale ahaan mashquulsan oo qofka iskii inuu barto oo kale. qaybtan ku xigta waxaa la yiraahdaa personal online tutoring baa la yiraahdaa, waa macallimiin book garaysanayso oo Englishka iyagana si online ugu dhigaya. qaybtan ugu dambaysa waxaa la yiraahdaa IELTS online courses, waa koorsooyinka loogu talagalay dadka sameynaya IELTS preparation, dadka sameynaya oo iyagana koorsooyin maaragtay diyaarsan oo maxaan ku raadayay live courses ah. qaybtan ku xigta waa skills-ka, tusaale ahaan Englishka afarta skills oo qofka laga dhiso inta ugu badan waa listening skills, reading skills, writing skills iyo speaking skills. sidoo kale intaa wixii ka dambeeya marka waxa weeye website-ku waxaa ku jira free materials aad maxaan ku raadayay ka faa'iideysan karto, wax ku baran karto. tusaale ahaan qaybtan hadda waxa weeye waa grammar-ka. casharadan oo dhan intooda ugu badan waa free, waa casharo maaragtay practice aad ku samayn karto, ka shaqayn karto, daawan karto. qaybtan tusaale ahaan A1 A2 waa elementary classes-ka, B1 B2 waa intermediate classes-ka. qaybtanna waa maxaan ku raadayay inta basic ah oo dhan grammar-ka laga dhisay. qaybtan waa grammar reference, English grammar reference baa la yiraahdaa. qaybtan ku xigta waxaa la yiraahdaa vocabulary-ga weeye, iyadana waa erayada qofka raba inuu Englishka qaybta vocabulary-ga inuu iska dhiso. iyadana saas oo kale way maxaan ku raadayay sidoo kale A1 A2 oo vocabulary loogu talagalay A1 A2, B1 B2 iyo vocabulary games oo ah geemam. tusaale ahaan vocabulary-ga oo kale lagu dhisayo qaab game camal ay diyaarsan yihiin. qaybtan ku xigta waxaa la yiraahdaa English business baa la yiraahdaa. marka waxa weeye iyadana waa aragtaan qaybahaas ka kooban tahay podcasts for professionals, English for emails, waxaasoo dhan uu ka kooban yahay video zone, audio zone, magazine zone, story. qaybtan English level, tusaale ahaan qaybtan ugu horeysa oo kale waxaa la yiraahdaa English level, waxaa la yiraahdaa online English level test baa la yiraahdaa. waa imtixaan yar oo kooban oo loogu talagalay qofku inuu ku ogaado levelka uu ka joogo luqadda Englishka. marka iyadana waad ujeedaan, tusaale ahaan A1 waa elementary level, A2 waa English level, B1 waa English level oo intermediate ah, B2 waa English level ama upper intermediate, C1 oo advanced. labadan level oo dambe waa advanced. kanna waa proficiency. marka waxaan ku raadayay proficiency waa marka qofka Englishka uu ka gaaro maxaan ku raadayay heer fiican sida native speakers-ka ah oo kale. marka waa kaas qaybahaas ugu muhiimsan. innaga marka maanta waxaan rabnaa si gaar ah inaan u fiirino qaybtan oo la yiraahdo vocabulary-ga. baranka luqadda Englishka waxay tahay. marka qaybtan waxaa la yiraahdaa B1 and B2 vocabulary. horta saa ujeedaan vocabulary-gu sidii kuwii oo kale grammar-ka isagana wuxuu ka kooban yahay heerarkaas ayuu ka kooban yahay. qaybtan ayaan rabnaa inaan fiirino. tusaale ahaan qaybtan waa B1 and B2 vocabulary baa la yiraahdaa. marka inta ugu badan waxay kaa dhisayaan vocabulary-ga erayada oo si maxaan ku raadayay advanced ah lagu barayo, loona qaabeeyey hab qofku maxaan ku raadayay aanu ku caajiseen oo uu shaqaynayo. tusaale ahaan sidaad ujeedaanba qaybtan hadda waxaa la yiraahdaa air travel vocabulary-ga la xiriiro dhan halkaas bay ku jiraan. appearance 1 wuxuu ku jiraa A1 and A2. appearance 2 around waxaan ku raadayay around the town vocabulary-ga la xiriira. tusaale ahaan qaybtan baan hadda inagu eegaynaa oo muuqaal yar oo kooban ka diyaarin doonaa bal sidee baa loo shaqaynayaa
sidee baa looga shaqeynayaa waxaan hadda erayadan qaabkee baa loo baranayaa marka raalli ahaada internetka waa yara culus yahay laakiin wuu soo furmayaa mar dhow insha allah tusaale ahaan hadda maxaa layna yidhi what is the difference between a carosine and crossroads muxuu yahay farqiga u dhexeeya carosine iyo crossroads carosine inta badan waa meesha dadku ay maraan oo loogu talagalay dadku inay maxaan ku rahdaa baasaan carosine roadsna waa baabuurta meelaha ay maxaan ku rahdaa cross gareeyaan tusaale ahaan labadaba sawir ahaan ayaa la inoo tusi doonaa waxaa la ina siiyey marka maxaa la yidhi instructionka la ina siiyey match the words and pictures waxaad soo qaadaysaa ereyga waxaad ku aadinaysaa sawirka uu leeyahay simple okay tusaale ahaan maxaa la ina yidhi qaybtan tusaale ahaan hadda halkan si aan uga jeedaan sawirkan waa baabuur xagga u socota oo wadadan cross gareynaysa iyo baabuur xagga u socota oo wadadan cross gareynaysa qaybtan waxaa la yidhaahdaa carosine roads ereygaa click siinaysaa waxaad geynaysaa barta loogu talagalay okay qaybta ku xigta halkan muxuu yahay kan hadda waxa weeye waa wado halkan saa ujeedaan waa road baan dhahaynaa iyada qaybtan oo kale maxaa weeye waa corner waa sawirka isagana waa corner halkan sawirkana ujeedaan waxaa luqadda ingiriiska lagu yidhaahdaa halkan baynu ka arki doonaa signpost baa lagu yidhaahdaa inta badan waxaa lagu bixiyaa instructionska wadada okay iyadana waa ujeedaan carosine marka haddaa maqasho waa kana waa meesha loogu talagalay dadka inay maraan meeshaan waaye carosine qaybtan maxay tahay traffic lights waaye okay sorry accident yar halkaas okay qaybtan maxaa la yidhaahdaa iyadana waa street lights ama wadooyinka nalalka cadceedda ku shaqeeya wadooyinka lagu xiro waayo qaybtan halkan sawirka saa uga jeedaan waxaa ka jira halkan traffic jam marka traffic bayaaligan halkan baa loogu talagalay inaan ku buuxino traffic baan click siinanaa isagii baan soo qaadanaa meeshaan baan dhiganaa halkan saa uga jeedaan waxaa weeye waa meesha loo yaqaan roundabout meesha loo yaqaan roundabout oo inta badan ah meel maxaan ku rahday ama meesha ay Soomaalidu inta badan ugu yarto aargada ama barxadda oo kale inta badan Soomaalidu barxadda way tiraahdaa sida barxadda Garowe oo kale tusaale ahaan roundabout baa qaybtan la yiraahdaa roundabout waa tana iyada markaas click baan siinay waa soo qaadnay ereygii pavement inta badan pavementigu waa marmarka la dhigo wadada markay dhisan tahay meel baa jirta dadka loogu talagalay dadka wadada dhinaceeda maraya pavementigu marka waa maxaan ku yiraahdaa waa kana waa bartaan okay halkan saa uga jeedaan iyadana waa bus stop ama meesha inta badan laga raaco basasku ay istaagaan baa la yiraahdaa bus stop idana erey ahaan baa la inoo siiyey ereygii baan click siinaynaa waa soo qaadaynaa barta loogu talagalay baan geynaynaa okay sidoo kale square saa u jeedeen isagana waa soo qaadaynaa square-ku inta badan waa sida caadiga isagu afar gees halkan saa uga jeedaanba okay markaa dhammaysid marka oo erey sawir walba aad ku aadiso ereyga loogu talagalay waxaad taabanaysaa si aad u fiiriso waxa meesha aad ku buuxisay ma saxan yihiin mise waa khaldan yihiin waa inaad finish dhahdaa si aad u aragto wixii kuu saxan iyo waxa kaa khaldan finish baan anaga niri okay waa la inoo saxay marka sidaad uga jeedaanba meeshan waxaa la isku aadinaya 12 erey iyo 12 sawir okay marka to alif out of to alif baa inaga leenisaysa halka uga jeedaan marka qaybtan waa ku guuleysanay waa soo dhamaynay waa ereyadaas iyo sawirradooda isku aadinay markaad shaqayso oo ereyadii aad ku aadiso tusaale ahaan waxaan kaloo idinku darayaa ereyga haddii tusaale ahaan aad ku aadiso sawir khaldan oo lagaa khaldo halkan baa taaban kartaa try again baa odhan kartaa sidoo kale haddii aad xoogaa ku wareerto oo kale waxaad samayn kartaa intaad dhammaysid baa waxaad odhanaysaa show the answers muhiimadda loogu talagalay qaybtan sare maxay tahay muhiimadda qaybtan sare loogu talagalay waxay tahay bal inaad baratid erayada iyo sawirradeeda leeyihiin iyagoo loo diyaariyey qaab ah inaad ka shaqaynayso camal oo wixii aad khaladayna arki karto
haddaadan xataa hal xabo ka garanayn waxaa loogu talagalay inaa intaa dhammaysid intaa say kula noqoto intaa ugu gurtid goorta aad dhahdid show the answers okay qaybta waxaa loogu talagalay simple inaa erayada baratid qaybta shaqooyinka marka waa kan task 1 task 2 task 3 task 4 task 5 dhammaan shaqooyinkaas wax kale ka hadli maayaan erayadaas aynu soo aragnay bay ka hadlayaan marka tusaale ahaan task 1 oo kale baan soo furanaynaa task 1 maxaa layna yidhi waxaa la yidhi put the words in alphabetical order waxaa u dhigaysaa qaabka tusaale ahaan abcd-da oo kale qaabkay eray ahaan u kala horeeyaan tusaale ahaan abcd-da waa la yaqaanaa a maxaa ku xiga b baa ku xigta b baa taala b maxaa ku xiga c baa ku xiga adoo alphabetical orderka waa garanaysaa s iyo iyaga xagga dambe tegi jireen t iyo waxaan dhan waxaa ku xiga aan jeclahay tan pavementigana waxaa ku xigaya waxaa ku xigaya isagana road oo arta sida caadiga maxaa ku xiga s baa ku xigta traffic waa u damaynayaa qaybtaas markaa dhamaysid waa laba qaybood bay ka kooban tahay sida halkan falaadhan baa laga fiiriyaa falaadhan hadday madowdahay waxaa weeye waxbaa ku haray sii soco oo sidoo kale waxaa ka dareemi kartaa labadan calaamadood iyagana inaa haysatid laba maxaan ku idhaahdaa qaybood qaybtan islayadana sidoo kale maxaa lagu yidhi waxaa u dhigtaa order u dhig tusaale ahaan hadda waxaa layna siiya laba eray oo c ka bilowda maxaan kusii kala saaraynaa alphabetical orderkooda xarfaha ku xiga tusaale ahaan hadda o iyo r yaa horeeya r baa horeysa o baa horeysa sida caadiga alphabetical orderka ah waxaan dhigaynaa corner baan halkaa dhigaynaa crossing baan ku xijinaynaa sidu inta badan way u damaysaa artna s baa ku xigtaa okay markaan qaybtaa dhamayno waxaan dhihaynaa finish sida halkan ba resultiga nooga soo baxay muxuu yahay 11 out of 11 oo ah inaan wada saxnay task 1 saas markaa ku dhamayso waa iska xiraysaa task 2 baa furanaysaa marka task 2 waxa weeye iyadana waxa weeye listen instructionka lagu siiyo listen and write letters to spell the words baa lagu yidhi tusaale ahaan qaybtan banu codkan ku sanan waxaa layna yidhi bus stop halkan maxaan qabaan bus stop erayga xiga qaybtan waa badan tahay corner waa isagana okay erayga xiga ma tegaynaa isagana waa crossing erayga xiga ma tegaynaa crossroads okay crossroads erayga xiga ma tegaynaa pavement isagana muxuu yahay pavement erayga xiga ma tegaynaa waa road isagana erayga xiga ma tegaynaa roundabout waa roundabout tiidi waa haysanaa already okay tiidina waa haysanaa erayga xiga waa signpost tiidi already waa haysanaa erayga xiga ma tegaynaa waa square erayga xiga ma tegaynaa waa street light waxaan jeclahay halkaasu waa double e baan jeclahay light street lights weeye oo waa plural halkana maxaa weeye traffic okay traffic lights halkan maxaa leena marka traffic lights okay qaybtaas intaas bay ka kooban yihiin qaybtan erayada inta la dhageysto misna maxaan ku idhaahdaa lagu buuxinayo letterska inta ka maqan okay finish baan dhahaynaa marka saa u jeedaan 15 baa laynoo saxay maxaa laynaga waxa weeye 19 baa laynaga rabay 15 baynu saxnay 4 baynu qaladnay 4 baynu qaladnay maxay yihiin marka aynu aragno okay kan hadda muxuu yahay traffic baa laynoo saxay lights marka halkan lights st already st aynu haysanay baynu ku darnay qaladkaas waa sameynay okay
qaybtaana maxay tahay iyada qaybtan waa laynoo wada saxay tan waa laynoo saxay tan waa laynoo saxay okay let me check that again okay tanna maxaynu khaladnay sign post okay iyadana khaladkan sameyn waxaa weeye sign okay let me check that one okay in meeshaas tusaale ahaan waa in waxaanu ka dhignay ing taas khaladkaas baynu ka sameynay okay pavement qaybtaan ahna already ereygii baynu wada qornay isagoo dhan nt iyo tdiina waa layna siiyey okay qaybtaana st baynu qornay xaggan bay st inoo taalay okay waxaan jeclahay qaybtaana iyadaana inaad fahanteen sidoo kale taaskeedaan waa sii wadaysaa waa shaqo loogu talagalay ereyada si maxaan ku idhahdaayey advanced ah inaad u baratid vocabulary-ga oo dhan qaybtaas baan tusaale ahaan uga soo qaadanay aad baad u mahadsan saaxiibayaal intaas waxaa ku dhan muuqaalkeena maanta waxaan qaybta description-ka iyo commentiga ugu horreeyaba idiin dhigi doonaa linkiga website-ka British Council si aad halkaasi u booqataan ilana aragtaan qaybta iyo waxaan ku sharaxaya halkan sidoo kale mar labaad waxaan idin xasuusinayaa inaad subscribe dhahdo kanaalka sidoo kale aad la sii wadaagto saaxiibadaada kale si ay uga faa'iidaystaan fursaddan qaaliga mar kale aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh